Wiil yar ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu faraxumeeyay degmada Shingani ee gobolka Banaadir, waxaana falkaasi ka soo baxaya faahfaahin dheeraad ah. Walaal Exar oo aragtidaada ka dhiiba siina shaargale si ay dhiirigelin inoogu noqoto saaxiibo kalena aan ugu helno. Ehelada wiilka yar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegeen in wiilkooda oo 10 sano jir ah falka lagula kacay xilli habeen ah uuna ku sugnaa bannaanka gurigooda oo ku yaala degmada Shingani ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale ehelada wiilka yar ayaa sheegeen in ay baxsadeen raggii falkaasi ugubka ah geystay. Waxa kale oo ay eheladu sheegeen in falka lagu sameeyay wiilka ay ogaadeen kadib markii la geeyay isbitaal laguna sameeyay baaritaano dheeraad ah, waxaana dhacdadaasi loo qabtay hal qof oo la tuhmayo sida ay inoo sheegeen dad ehel la ah wiilkaasi. Falkaas ka dhacay degmada Shingani ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo jimcihii la soo dhaafay gabar dhalinyaro ahayd degmada Waaberi loogu geystay fal isugu jiray kufsi iyo dil, kadibna laga soo tuuray dabaq 6 biyaana ah. Laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegeen in falkaasi loo geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax loo qabtay 4 ruux isla markaana weli ay socdaan baaritaano kale. Muddooyinkii ugu dambeeyay falalka kufsiga iyo dilka ayaa ku soo badanaya gobollada dalka qaar, falalkaas oo ugub ku ah dalka, waxaana dhacdooyinkaasi loo soo qabtay rag qaarkood la toogtay halka kuwa kalena xukunno lagu riday.